soo dhaweentani ballaaran ee loo sameeyay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo in muddo bil hawlo shaqo ugu maqnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa kaga hortagay deegaanka Goroyo Cawleed duleedka magaalada Borama mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen xogayaha gobolka Awdal isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda gobolka duqa degmada Borama xildhibaanada golaha deegaanka degmadani Borama xogayaha dawladda hoose duqa degmada Dila ururada bulshada odayaal haween iyo dhalinyaro tiro badan waxaana ugu horeyntii halkaasi hadalka iska daba qaatay xogayaha gobolka Awdal iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka soo qayb galay soo dhaweentani waxayna dhamaantoodna tilmaameen waan ugu daahnay halkan maanta waxa maraya madaxweynihii gobolka gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali oo xogaa muddo hawlo shaqeyn naga maqnaa runtii gudoomiyaha kuleenay soo dhawow shaqo badan baad ku maqneed maadaama dawladda dhaxaad ku maqneed dawladda dhaxana wakiil ka tahay gudoomiye waxa leeyahay ku soo dhawo gobolkaagii ku soo dhawo degmadaadii ku soo dhawo dalkaagii kulay waxa la aad ugu hambalyeynaya gudoomiyaha hawsha ku maqnaayay safarka u galay kulay shaqada xaggan uu ka waday waxaan leenahay gobolkaagii iyo degmadaadii ku soo dhawo isaga madaxweynihii gobolka isaga noo maqnaa isagana ka warsugeynaa kulay waxay warbixinaa gobolka isagoo muddo naga maqnaa Badhasabka gobolku Hargeysa hawl shaqana ku maqnaa maantana noo soo noqday isaga ku soo dhaweynay waftigan ballaaran ku soo dhawo gudoomiye gobolku waa gobolkaagii dalku waa dadkaagii waxaan ku leenahay wax dhibaato ma jiraan soo dhawo oo hawl shaqo ugu maqnaa waxaan leenahay soo dhawo gudoomiye waa soo dhaweyn waxaan maanta halkan u nimidnay Ramadaan Kariim dhamaantiis halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa Badhasabka gobolka Awdal oo muddo ka maqnaa gobolka isagoo ku maqnaa hawlo shaqo waxaan ku leenahay gudoomiye ku soo dhawow waa gobolkaagii waa nabad waa wanaagsan yahay waa alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku soo dhaweynaynaa runtii iskama tagin hadalka waxna waa dhow waxna waa hadeer iskama tagin waan idin tagay horta marka horeba oo gobolka nin u maqnaa baan ahaa iskamaana maqlayna waan idin maqlaa iskamaana imanay waan idin imi wixii waray faahfaahintana fadhi baynu isugu sheegi doonaa nin gobolka u maqan baan ahaa dhibaatadii dhacday ee bariga ka dhacday hawlahan u maqnaa bay kamid ahayd si ballaaran waan isugu warramaynaa wixii dambe fadhi baan isugu warrami doonaa wixii aan soo qabanay iyo wixii halka hawle maraysoba aad iyo